بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن داوديال مeel kasta aad joogtaan halkaad nagala socotaan waa Home Cable TV waa wareysi gaar oo aan la yeelanay Nimca Yaasiin Caraale fanaanada weyn ee Soomaaliyeed waa fanaaniintii hore kuwa dambe intaba de Nimco طبعا heesa kasta oo la qaadayo qaybteeda way ka qabsataa kugu soo dhaweynaya Nimco inaynu san isku soo hor fadhiisano wareysi yar oo kooban oo de wax yar aynu is wareysan doono okay aad iyo aad baan idin salaamaya Home Cable سيبه فهيم هذه قروري سيدة عندك يستو أما داودو أن تاجرو عاد بني دوّد السلام يا إن دهرجي سندل تشوجا هذا بيل بتشوجا السنة كي 19 كيلو وين تشوجا هب نيويوركي أوجست سنة وين جي تشوجي إن دنيم هرجيس وحكون قتيبة قبل إيه هرجيس أودو كلا صعته لقمة موضة وقف قربك هاي منايا وقتي هذا عادي مرة سادي جو تشوجا هذا عادي جو النقطة هي waliba maanta maalin aan ugu nasiib wanaagsan hargeysa imaado fiimay man arag xanuunka ilaahay naga hayo intuu ku habsadayna ilaahay ka dulqaado inagana hay naga haye London baan ka ibi oo aan markaas bantoodu bilaabmayso aan wali bilaabmin ma soo baxay bishii hore ligitonkeedii dawakaas dadka nasiibka wanaagsan aad ku jirtaa de nasiibkaaga waliba London aad buu ugu dhacay ilaahay naga haye adiguna de wadankaaga oo nabadoo timiday wadankaaga oo nabad baan ma sha Allah ilaahay waxaan uga baryaynaa in cudurka ilaahay naga hayo inaga iyo intuu ku dhacayna ilaahay ka dulqaado boqorku ay horta aad iyo aad aanu baryaa umada meel joogtana waxaan doonayaa inay salaaliyaan gaaliya muslim gaaliya way salaaliyan raq oo yaqaanaan waxaas inagu inay salaalino kala fogfogaano oo aynu ilaahay baryano baryada ilaahay aan badino aad iyo aad baan idin salaamayaa Soomaali Maxamed meelkiisa joogaanba bal waxaan doonayaa walow ayna heesay noogu jirin laakiin haddana mar haddii Nimca la arka de hees iyo maxaad laga maarmi maayo in taariikhdii Nimca dib loo xasuusto Nimco imika waxaynu ku jiraan 2020 waliba bishii afraad bal xilli ma ayaad fanka ku soo birtay Nimco muddo intee leeg baad ku jirtay فهيماي هرتا فانكاد waxaan ku jiraa mala qiyaastii sidniyo waan ku jiraa horta halkan qurbuun baan ugu fanku igu baxay aan ku qarxay laakiin horta Soomaaliya markaan joogay riwaayadii aan ku qarxay waxay riwaayadii loo jiray isaga jacaylka Maxamed Saleeman iska lahaa waxaan ku riwaayadaas aan qaaday anoo waa bariyahayn aan waligeed tiyaatarka arkin xaflad gabar qurbaa soo dhoofisay dariskayga in ban habeenkii tagnay oo de laga tumay Maxamed Saleeman iyo hanuuniye joogan kama ku ban laba heesood ka qaaday waaba iga heleen bixin gaban ruwaayad u dhiibeyna ruwaayad isaga jacaylka la dhiibay dirisna waanu hayn waa bari xaafada la yiraahdo halkaas horta ruwaayad la ii dhiibay ruwaayada waxa ku jirtay waxaadii la bilitahay beeraha wajaalo intuu robar qadi helay baliyada xareedii tugagii burqanaya deedna ruwaayadii waan qaaday ilaa iyo xageeyay boorame waan ka soo celiyay marka ruwaayada heesa markaan qaadayno waxaan dhiganayaa for example secondary Soomaaliya ka baxaya marka baxamar Soomaali baan marka future iyo maaragtay guur aan ku heshiinay aniga waxay soo baxay marka chorus Ingiriiskan ingiriiska markaan jaamacadii waxaan lagu keenay Maxamed Saleeman oo heesaya oo leeyahay maanta ardayda waxa la idin soo casuumayaa boqorkiina codka Soomaaliyeed Maxamed Saleeman baa la keenay Maxamed Saleeman baan markaa ka helay heesi siidaan oo gabadh yar aniguna markaasaan kolba wax yar u geeyayo dhag baaba ka helayba Maxamed kibaaba fahmay oo halkaas aaban sirkanaba ardayga yar miskiinka xaba xadu sheegday Maxamed baan halkii ku haasawno iska sheegsano hees baan wada qaadnay وليهاي عليهاي نوركي إندها إيو نفتها راح ديدو سيداني كوغو نقولهاي نيدادو ما أوقتهاي ما كسيدا أم بنابرك عاشقو إنو يقول نقادون نولو شابلانتا إنان نعيو ما ogtahay halkaas aan isku baranay deedna waxaan ku yiri horta inay keenay jaamacada ku jira xog ku sheeg wax baysanay warqad u diro warqad baan u diro waxaan ku yiri naadeerow iga raali ahaw ha isugin de maxay waqtiga ka qaadi maayo de ilaahay mid kale ku sahlo isaguna halkiiba masrax ku warqadiisa wax akhristay buu dhacay markaas muxuu qaaday fikriyo naftayday filan waagan igu dhacay في انتباه لويده
feedha bidix wadnaha sudan tii jacayl ku beertayba fuulini weyda igu caadiki halkaasu isna mariyey samir baa u fiican idhiib oo waxaan islaamaydaan dhalan berigaase fayiba waxaa islaa waa dagaaladii intii dagaaladii ka dambeysana inteedu baa la socon kara sheekada moogtahay okay deedna halkiiba haddana maxamed saleebaan anigaa soo baxayay markaas maxamed saleebaan haddana halkii waddankeena sugu nimi haddana heesaan isla qaadnay kalgacaylka halistiyo hadimada ka dhowro hadda laabtaygu hay sida waan ku haweyno inaan hagaar u geysta waa habeenkii xalayoo tegey adigu jacaylka halkaas aniguna gabadh yar fudfud baan matelayaayo meel laba salba ku lahayn kii oran ka cararay kana hadda dambe kama lihi deedna cidlaabaan ku dhacayaayo maxamedna iga tegiyo waa aniga isla fikiro waxaan aleyle inaan ka yaraayo miskiinkaaya ilaa ardaynimadii ilaa dugsigii dhexe ilaa secondary futureka kaa rabe nolosha wanaagsan kaa rabe kiibaa nafsigiis ku haya ku noqo waxaan ku noqday shamaali waxaan shamaaliyo waan kuu soo ardaa galay markaasuu yidhi soodigii naga guuray markaasaan ku yidhi guryo noqoy jacaylkii markaasuu yidhi soodigii gunta u jaray markaasaan idhi war jacaylkeenu dib u baar diran dooriga ahaa markaasuu yidhi adigaa daleeshiyo dabadaha ku tuuray doondoon halku jiro saan diiwaanka iyo baar diiwaanka suu dambiilaad ku dhigan tahay markaasaan idhi dib ma uga heshiinaa markaasuu yidhi hadalkaaga iga daa markaasaan ku dembigaan kaa galay anigoona diideen haddana daad soo celi haddii aad diidana walaal waan istabaya markaasuu haddaad istabi lahayd iyo dab haddaad ku dhici lahayd wadani xesha halkiiba igaga dhaqaaqay halkii baan hees cala ka qaadayaan markan dhulka fadhiisto marna kaco markaa gabadh yaroo dhuuban baan ahay toobab yaroo gaagaaban baan xidhanahay qurux badan waa la yaaban yahay halkaasaan deedna hees cala ka qaaday geedkii ambeerenka ila shaygu condhada wataan dabgeliyeenkii kaalanagahooye waalidkay guddoonkii gol haysataa dhashadii nafta umagadahaye gacmasay dhintaydii miyan ee dangalabsaday cawd billaah na waxaan kugu dhintay 9 habeen baro ay ka socotay tiyaatarkan malaha 7 habeen bay ka socotay ilaa boorama biistaas un baa la guraa riwaayad yaro cajaayib bahayd taasaan horta ku qarxay xamar markaan tagnayna TV-ga qarankaan u duubnay heesta birbiru cadka tiina way qarxada meel walba aniga markaa laga yeeriyo Soomaaliya macaysan inta la leeyahay oo xamar ba noo shidan tahay bay qabti nagu dhacday ingiriiska aan joogayba halkaas dufankay ku qarxay faymaay aadna waan dii salaamayaa alla marka khayr ban iskoognay horta wixii kalena waan isaga daba imanayna nimco waxaad fanaaniin bad waqti xaadirka isku jeelahaydeenoo fankada ku wada jirteen imika fanaaniintii inta badan adiga ayaa ka soo haray nimco yaasiin maxaa la yidhaa ma jiimkay ciyaartaa ma cuntooyin gaaray cuntaa codkaagii isma bedelin jirkaagii isma bedelin wejigaagii isma bedelin ma berigaasaad yaraydo waad iska weynaatay mise waxyaabo kuu gaaraad cuntaayo aad kaga duwan tahay dadka horta waa su'aal aad u fiican oo da'da markasta waa la weydiiyaa hadda fiyoda isaga laga wareysanayso taas waxaan ku yiri waa no common da'deeda weydiisay horta saad sheegtay horta beriga fanaaniinga waaweyn baa soo raacay runtii 14 baan hayno maxamed saabaro wadanka haysta ilaahay jannadii intii dhimatay baa ka waraabiye ayaa wadanka haystay gadar baanu nimi gadar baan ka soo galay waaniga waa Fayrus Daahir waa Saalax Qaasim waa dacar waa kul adigu iyo intaas miskiiste oo fara badan marka intaas baan ugu yaraa meeshii mareysay mid kale inside-kana waa laga gaboway xaggan maarta inside-ka maaha korka qofku inuu nadiif xagga ka ahaadaa oonu naxli lahayn oonu maartay uqda dadka u qabin oo maartay haddii qof ifanku xun waa la iska cafiya masaamixun baa la yidhahdaa baryada ilaahay baa la iska badsadaa wax ka xumanaya ma jirto adiga hal lagu xumeeyo adigu mar walba ilaahay wax ku siinayd kor ha marka wax walba ka dhaqaaqa aniga wax kasta hadii lagu sameeyay xaqooda ilaahay uga qabo waan ka socdaa aarsa iyo cay iyo ma aqaano ha
ها نظيف إسكا هذا ومدة إسكا ها والله ومدة إسكا صدقتنا إسكا بصدا قفكوا ولا ما دافو كل حد كلام ما دافو وحين هيوان ديبا صدقتنا ويكفرنا الساعة وهنا تانا أنا وصومالي محمد الشيقية و very important حتى نصوم بس وصعتي وين تسكتش الحسن لو جرجارو حاجة دينتنا وتسكو في عنتين قياسي واحد في عنا دي نوتشينس anigoo sii tixraacaya dadka anigu waxba uma qabtada aad tiri nimcooy muddooyinkii ugu dambeysay social media waxay isdhex mariyay ama baraha bulshada ay ku kulanto inay warar soo baxayo lalahaa nimco reerkani ka soo jeeda iyo reerkani ka soo jeeda iyo gabadh ka hadli jirto waa walaashii oran jirtay hawshaasi horta iminka halkay maraysaa horta waa su'aal aad iyo aad u fiican dadweynuhu iga sugayaan horta runtii wax badan ما نخبين ما أنت أنا كهذلو لكن سي أدبي في عنت وكهلا سؤال شاد وديسي مركز هو محمية قال يود الدنيا كل اللي جوجيا الصومالي هرت بحويان إن هالكم وانجي إمي تشون يشولاي أقسم تشو وحنو إمي إن أنا أديك دي أنا كلا قادنو إن أنا أديك كلا قادنو دي أنا بانو إمي أنا تشوجي أديك هذا الشيء هرجيس تشوجا أو تري دي أنا دي بكرو من السالة ما هي أفر بلاد ومصون تو عين كامل أنا هركيسن شوقة ويدوم واحد سلاد واحد شوقة لندن تضبطي بهذا الشيء أنا سديت دي بنهضله ما أنت كحكتي بدري بقى ورثتي وأنا جدي أدي قال هذا جاي ونكويم ولا المعاني لندن ونكل شوقة دي أنا دي بنانو إيمي مالنتا شون يشولاي يأكسبن شوقي إرجان درتي بقول أحمد باكم ذها وحكم ذها سلطان كي أدي كم ذها أديرو إبراهيم إن وندرت وحنقول نحن نقطة دي أنا دي نوكل قاعدة أنا وانيجا إمي شكلنا نسأل قصة أفشرو أدوك وح الشيكة دي وانا أركينا الحق ودي كسرونين أديك باسبور ما هيستطيعوا وين الجروب اللي جيجيو أدي رسكتها صون نقص كعلى قدكتو بابا أدوك سيلي ما ولين يه وحنا أركينا وقت جي هرتشوني شو لا يقصعدين أديكني شخص كتشوكتوني مرنا بارجع سيجوا من بس مركب حمل كده ما حلو يقول أديك كم صوتهم أنا حاجة إسكا قبصة داد بحيث هذه كشرتها لكن هدي عاد بحضه ويصفر يسمع حرنتون تقبل لي الدنيا اللي بقى يا ماذا صوت لي لنا بيتنا بحثتون هرجسنا ويرومتها تدنا أنا ولي ستيشن ما أرك سكت محكمة ده قبل أن ما درنا فاض مدير اللي هذا كنا والمحكمة المديف يجيسدو ويك حيسي محكمة دي بيجيسي واللي سوكي تاجي وحنقول أنت سربا أنا ولا شيء ديجي نالكلا سارو نلا قادو لعن كدينا هذا أرش سوقر اللي أرش كي مسوقرتي ما أنت كلام سوء عليه وحلي اللي جو قدومي لو يربان قبصدي وحلي يقول هذا ما أنت عن كاس صنقه وان صنقدي وحلي يديك سما كاس الله دري يا ما أنت هالكي اللي وجه جاتينيا وحنسي سلطان كي إبراهيم أديرو نبركيس والله وعي أنا يربى لودي واللوجي ديت كاسة يمن إسها هالكاكالي ولا سوق كاي كأنه محكمتي أنا أديك فيس تو فيس إلهي بقى يقصر يا أنا قبينا واحد اللي ما يهد وشبع أنا ولا قلت رسون ويصوص عطا الدين كانوا بديسك قصية هي إلهي إلهي بقى يقصر ينقول يجي نبتجين أنتوا حاكم كي كعي ما أنتوا كعي سلطان كي إبراهيم أيوة أديك وين دجلاد وحبا ما مقشوا مركز يكون ملاير بعض التيم بيصير مايا هيصير فريسون ما ذكرت أدو على كل حال حقه ذا كما صعونين شكله حقه سوق جبيين أنت بلوق دقو دي بهدنا الله دقي أنا وام بحي مدة لا قبتي مدة دي لا قبتي أنا وان كويمي حتى صدق بالبنشوة بيش صور وحن تاجن هاي محكمة أرتي السمك يهري ويبقتها قاعد جم سوق بني سالين حتى أنا كي كلا بالنوجو ترى ويك بالنوجو ترى حتى كي قدام بي وتمر قد دي أديجا تي قدام بيسي أي هذا محكمة وصل درتواتها أنت هذا بودن واتاس محكمة دو أي سوها جاتسي واحد تري ونحن سنة يا مناك إكرا محكمة الشرف لو حنقعد سنة يا ولا ليال كورونا ترى ليس ما بيحكي كرا أنا قفوي بانا هاي أنا نولاني ينكل إلهي بأوقت ضرب بلاد دي بحلا يقولوا أنا قمت دقني هرجيسة وحن دقني إنجليزكا وحنقعد سنة ولا شيء ديجا سي شرف له أديك واحد بعد ميريا كقايلسي ولا له كالي بريت الصباح محكمة ديوان كم بيجارسها
markii xaqiina war laga waayay maxkamaddu soo dhaqaaq wadaadayay go'aan bay maxkamadii gaaraysaa aniga lawyer labaad baan qabsaday waxaan ku iri ilo adeegaha la keeno maba dhici karto inaan halka ka dhaqaaqo adeego halka la keen mooyaan waxa la yiraahdaa wuxuu kuma lihin maxkamaddu maaha qof maadar galay oo dambi galay oo la soo xirxiriyo soo katiinaysan la keenayo waa madani way diidi kartaa way yeeli kartaa haddii diido haddaan nahay maxkamadda anaga xukunka ridayna marka hadda xukunkii bay maxkamaddu u taalaa waxaan ka codsanayaa adeega iyo reerka aniga isoo korsaday sharaftayga mudan inta soo leekaysiiyay inaad iga aqbashaan inaad bariba adeega ii keentaan saadama maxkamadana la geeyo intaan xukunku dhicin soonka ka hor buu dhacayaa intaan xukunkaasi idinku dhicin in aan dhacaankii kala qaadano ayaan idinka codsanayaa xumaantuna ma fiicna anu marna waxba kuma degdegayo adeega waxaan u ballan qaadayaa haddii waxaan u cadaynayaa adeega horta qof anigu nolosheeda maan arkin caana oo magac leh oo 20 sano hooyo aan dhalin iyo reer aan dhalin iska haysto iska korsanaya markaas adeegidina tiraado qayladaan waa wareey marka waa 2000kii waxay hadashay 19kii intaasoo dhan bay hadleeday adeegi oo tiri nimco anaga walaalo may wala may anigu sheekada waan ka soo sheekay mar 12kii waan hadlay hadda waan ka hadlay maxay haydeen waxaan ka hadlay VO-da anigu anoo 3 jir laga qaad waxa la geeyay Djibouti salaam batun caraaleeda la siiyay oo daa waxay korsatay inankeedu intuu qabay guriga ku wada noolaayeen iyo islaantuba halkan joogtay marka sheekh madar bediganta salaantii aniga korsatay batun caraaleena ilaa naxariisto way dhimatay Djibouti baan ku soo koray shanjir anoo ahba reerkayga ka lumay walaalkayga helay shanjir anigoo iyo odigi duubre loo oran jiray ilaa naxariistadeynimadiisba waaweyn hadii mar walba yimaadaan ilaa iyo 8 jirkaygii 9kii markaan ku socday sidaas bay reerkaas ii daba socdeen anigu markaan riwaayada qaaday Shamaali Djibouti baa aniga walaalahayga la soo hadleen markaan saa Ingiriiska u galay way la soo hadleen dibbiga si xiriirinaya reerkani waxaan ku markaan sharciga saa u qaato Ingiriiska way dul taaganahay dhayna baan ka qaadanayna okay gabadhayadii baa intaas calaamad baan kugu ognahay hadaad leedahay noo soo sheeg intii calaamadood baan u sheegay waan isunimi reerkaygu waan isbaranay adeega waan u tagay sheekh waan tagay waxaan ku riyay garanayno 3 jira 4 jira 5 jira 6 baan u gaaray no way ilaa haddana waan taaganahay lama helayo oo masaajidka galay ku dhaaranaya ana weyn oo 9 sano jira waxba iiga dhinay baan iga sheekhlay keenay marka adeegay waad ogtahay aniga adeegana way sugnahay walaalay macaani waxaan doonayaa inay waxa la beefkatay baa runimo gaadho laakiin hadda runtii bay taagantahay waa the real adduunkan waxay haystaa ma jiro horaa loo maray ilmaha dhashaan laga qaadi karin ku dhiigaaga baan lagu oran karin ma dhiigaaga dhacaan baa la kala qaadaya waa very easy one day bay nagu dhamaan dhacaankeena dil doono la diraya ma aqaan week baa leenugu soo jawaabi ma aqaan anigu hadii la naga qaado waa ban dhaqaaqayba ifan jawaabta sugi maayo walaalay macaani waxaad ku codsanayaa aniga adeegayna sukaya keeno waa mar labaadkii aan DNA-da u soo noqdo qoraal la soo qoro iyo common la isku soocayo waxaas waa very simple waa dad aqli gaaba waxa looma baahna waxa loo baahayay reality adeega DNA kala qaadano DNA hadii adeegun baa ka nool adeega ka nool iyo caruurteedii marka adeegay waxaan ka codsanayaa inaad media inta istaagtay waa wareey aad tiri 20 sano kadib maanta reerkayga helan ku yeedhan ku dhina reerkiina u yeedh oo kaali reerkan la xaale oo kaali DNA ba jira kala qaadane wadiga halka iga mareeyay ma waaye intaas soo sano kulba intaan argeysay maado hooyaday aqal baaqalka ugu qurux badan intaan u karay ugu raaxaynayay hadda muddo yar bay sii motantaa 2 sano oo sidii boqortooyadu aasad inta weed markaas aad qaylin lahayd ma bay daniga hadheenba runtii bay taagantay kaalay DNA aan kala qaadanay oo idinka codsanaya waliba maxay hadii la boqor Axmed ka codsanaya gabooyo dhan ka codsanaya saad igu wada kacdeen igu kaca adeega ii keena iga qaada dhacaanka waan idin salaamaya Ramadaan Kariim baan leeyahay Ilaahay balayday naga xijaabaan leeyahay in aadna waan idin salaamaya gaar ahaan waliba reerkay soo kursaday ee anaasta reerkay biraha madaxdiisa arintiin sharaf bay iga mudantiin markasta waan idin ogi koritaanki laakiin waan ka codsanaya Soomaaliinta adeega raacday iyo gabooyo dhan ilaa boqor Axmed baan la hadlayaa waa in sida aniga igu kacdeen
adeega ugu kacdeen ana igu kacdaan maanta noo kala saartaan intaanay maxkamadan dhicin aadna waadi salaamiya tankii farmaajo muur yar baan galay marka hore qosol yar baan ku jiray imkana muur baan galay laakiin saad baan salaamaya waa Soomaaliya wada jecel Soomaaliya oo dhan waan ka sharafoonayna hooyadeed iyo abeed ka faanta mana geeyo adeegan waxaan u cadeynayaa maanta u cadaato inaan noqdo inaan u cadeeyo inaan hayna jaamcir sadeeriye wallahi intaan taray ka badan baan taraya oo saan hore ugu soo hagaajiyay ka badan baan ugu hagaajinaya oo aanan ka maqnaaneen oo mar walba sheekh la joogaya oo mar walba sida aan u ahaayay si ka daran aan u ahaanaya aad baan ku salaamaya magacayga hadaan horta mashaakilka magacaniga haysta waxa weeyaan horta abiyo way fiican bay soo korsaday aad taa ay dhaleen way ka jeclaayeen wax si fiican ii soo koriyay waxay baray haday quraan tahay haday iskuul tahay wax kasta marka hadii aan fanaanad ahayn oo aan ahayn mooyiga ku ilaa ma rabo beer hore afar xafood ban burca la helay waa tan burca la oran lahaa laakiin se imaka waa fankan imaka aan ku aan baxay ayaan horta muddo dheer iga hadi doonin laakiin se magacayga rasmiga waa burca jaamcir sadeeriye aadna waa salaamiya hoodeena waa naag reer boore ma ah reer awdala ma sha Allah khayr baan isku ognay marka barsho wanaagsan mar labaad waa salaamaya shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaarinaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeega e-Dahab